kuma jiro in mujtamaca Soomaaliland isku si samata bixin u doonayaan qaati waxa la joogaan nolol rajadeeda nacal lagu mataanshay kala sarraysiin iyo koox kali tanaaday ganacsato tiro yar oo ka hodantay raashimo dheydkoodu dhacay dawooyin falsa shacabku waxay wehel u yihiin sharci indhaha sharoota loogu xiray boolis liibiyaan matalaya cadow aan la arkayn oo iska eega la leeyahay warbaahinta meesha ka jirtaana waa laba mingirifoon oo isku si u soo tabinaya xayeysiiska badeecadaha dhacay iyo kelmadaha malaawaalka ee kuwa mujtamaca afduubay ay ku qowlayaan dunida oo idiloo haatan hal qol ku wada jirta waxaan dadweynaha Soomaaliland ka diimoonayn kuwii dalalkooda dulmiga ka halgamay kana sabata bixiyay oo uu hormoodu yahay hogaamiye Kigambey 28 sanadood kadib Soomaaliland bulshada ku nooli waxay dib wax isaga weydiinayaan maxaa loo dagaalamay maxaa la soo maray sidee wax noqdeen xagee loo socdaa iyo hadafka jabhadii SNM sidan miyuu ahaa weydiimaha bulshada ayaa ku soo beegmaya xilli talada Soomaaliland muddo 9 sanadooda ay gacanta ku hayaan una kala dambeeyeen saraakiishii ururkii SNM 9kaasi sanadood oo kafadaha cadaaladda oo loo rogay dhibta baaxadeedana bulshadu haatan hayn laadahay موسى بيحي عبدي مدحوينها Soomaaliland bulshada wuxuu wali ugu celcelinayaa sababihi SNM u dagaalameen madaxweynuhu mararka qaar wuxuu bulshada horteeda la ilmeynayaa wixii daal la soo maray dhibaatooyinkii dhacay cadaalad darradii saami qaybsiga xilligii aadan cad iyo xilliyadii kacaanka xusuusihii ay ka tageen kuwaasi oo shacabka khudbadihiisa xitaa haweenku ay la ilmeynayaan maanta waa madaxweynaha Soomaaliland waa sarkaalkii shalay ka soo dagaalamay cadaalad darro lagula kacay shacabkiisa xasuusta dharaarihii hore ma yahay hogaamiye ku dabaqay dalka uu maanta midida daabkeeda hayo mase yahay Soomaaliland darafka dacal mid xukunka uu gacanta ku hayo uga xaqsooray Soomaaliland xilligan haddaad eegto dhinaca saami qaybsiga iyo wax wada lahaanshaha ummadda waxay u muuqataa mid nidaamkeeda laga dheegayo boqortooyada reer Aala Sacuud wuxuu ku gabood falay biixi wixii ummadda ka dhaxeeyay wuxuu baradhaafshay dhowr jeer mid uu hore uga cabanayay ilaa maantana ka cawd awood qaybsiga mansab iyo manfac ee shacabka Soomaaliland deegaanada gobolada Sanaag barigeeda iyo koonfurteeda Sool iyo Awdal iyo Sele kolka la isu wada geeyo waxaa 10 jibaar ka badan xilalka madaxweyne biixi uu ku tahay qoyskiisa aan tirine wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wasiirku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga taliyaha guud ee ciidanka qaranka taliyaha ku xigeenka guud ee ciidamada booliska taliyaha ciidanka dabdamiska qaranka taliyaha ku xigeenka guud ee sirdoonka qaranka gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha ku xigeenka maxkamadda sare qariiqaanka guud ee qaranka ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud hanti dhowraha guud ee qaranka la taliyaha madaxweynaha ee amniga la taliyaha madaxweynaha ee sharciga la taliyaha madaxweynaha ee dhaqaalaha la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha Soomaaliya xogayaha madaxweynaha maareeyaha hawada iyo madaarada oo ah wasaaradii hore duulista iyo hawada maareeyaha ka hortagga abaaraha iyo kaydka raashinka maareeyaha dekedaha dalka maareeyaha wakaaladda biyaha agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee bangiga dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo liisamada gudoomiye ku xigeenka hay'adda tayada ku xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka safiirada Djibouti Sweden Imaaraadka iyo ku xigeenka Ethiopia tirada xubnaha ugu badan ee 4 commission waa commissionka qandaraasyada qaranka commissionka maamul wadaagga kan aydiska iyo kan tacliinta sare gobolka Sool oo buuhoodlena ku jiro waxa saamiga xukuumaddiisa madaxweyne biixi ka siiyay 2 wasaaradood oo haafa iyo hal wasaaradood buuxa kuwaasi oo kala wasiirka wasaaradda biyaha oo ah wasaaradii laga soo jaray wasaaradii macdanta wasiirka hawlaha guud oo iyaduna ah wasaaradii laga hoos saaray gaadiidka wadooyinka iyo guryahaba loona sameeyay wasaaradda gaarka iyo wasaaradda arrimaha dibadda Sanaag bari badan hadaftimo laas qoray ceelaayi iyo dhaxar
iyo deegaanada hoos yimaada waxay saami u heleen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo kolka qaab dhismeedka Somaliland noqonaysa wasaarad magacu yaala maadaama ciidamada kala duwan leeyihiin taliyayaal khaas ah kuwaasi oo gabi ahaanba hoostaga kana amar qaata madaxweynaha isla markaasina madaxweynuhu soo magacaabo sidaasi ayay iyana wasaaradda gaashaandhiggu ku tahay magacu yaal aan wax shaqo ahayn halka haddaynu wax yar kor uga baxno waa kala taga iyo salaam dawladnimada iyo wax wada lahaanshaha kolka dhankaasi ka timaad deefta guud ayaan iyana loo sinayn inkastoo aynaan ka gayoonayn waxa idinku daawan doontaan iyada warbixinaha dambe hase yeeshee labada tusaale ugu basiisan dhinaca waxbarashada haddii aynu soo qaadano khaasatan deeqaha waxbarashada sanadkii 2018 Somaliland waxay deeqo waxbarasho kala duwan ka heshay meelo fara badan oo aynu ka xusi karno Ethiopia sidoo kale dawladaha Turkiga iyo Suudaan oo Soomaaliya u soo mariyay 300 oo arday oo dawladda Ethiopia ugu deeqday deeq waxbarasho waxa magaalada Hargeysa qaadatay 227 arday gobolka Sool 5 arday Sanaag bari 3 arday halka Somaliland kalena iyana qaybsatay 60 arday ee soo haray 27 arday oo dawladda Turkiga ugu deeqday deeq waxbarasho oo la filayay in xukuumadda bixi cadaalad shacabka ugu qaybiso iyana ha joogtee Hargeysa ayaa dhexdeeda dib isaga baafinaysa kuwii Suudaan iyagana meel lagu masheey dhinaca qandaraasyada haddaad eegto sanadkii tagay 8 qandaraas oo madaxweyne bixi gacantiisa ku saxeexay 5 kamida isaga ayaa isu saxeexay halka 3 kalena ay qaybsadeen Somaliland aanay ku jirin Sool Sanaag Saylac iyo Awda madaxweyne bixi laba wiil oo ubadka uu dhalay kamid ah mid wuxuu qaatay hal qandaraas oo kamid ah 5 qandaraas ee madaxweynuhu isu saxeexay qandaraaskaasi oo ah kan ugu weyn oo ah qandaraaska dharka iyo kabaha ciidamada dalka oo idin halka wiilkiisa kalena madaxweyne bixi uu ku daray deeqaha waxbarasho ee Hargeysa 227 ka qaaday kaasi oo ah deeqda waxbarashada Itoobiya khaasatan dhinaca kuliyada halleedka saraakiisha sare madaxweyne bixi haddii dhanka cadaalad darrada iyo xaqsoor la'aanta ummadda wax laga weydiiyo maba maqli karo oo sidan ayuu dibnaha caada ruugaya ninka xaq u leeyahay ay sheegay kolka urur caqligu isku dayaan inay ka hadlaan xaaladda meesha ka jirta waxa meel u taala shaambad 9 jibsatay oo qofka lagu qaadayo kiisaska ay ka mid yihiin cadow u fiiliye waa la soo diray Soomaaliya ka dambaysa Muqdisho laga masruufa ruux ilaabay wixii la soo maray shisheeye kalkaal u adeega kuwa Hargeysa duqeeye iyo xidha xukun la'aan waxa intaasi u dheer isku dayga uu ku doonayo in bulshada uu ku cabsi geliyo caburintu waa mid si laba laxaadsanaysa oo haatanba 6 magaalo Hargeysa u weyn tahay dadweynuhu amar bay ku seexdaan saacad cayima dhinaca kale waxaa la beegsanayaa hal abuurada culimada iyo dhalinyarada saddexdaasi oo ah kolka kacdoonada dunida ka qarxa la qeexayo dagaatiyada dhagaha fudud ee walwaala dareenada bulshada iyadoo ka dhiidhiga dulmiga ay u xulan yihiin Sheikh Aadan Sunne iyo tabeneeyo kale culimo abwaaniin saxafiyiin iyo madax dhaqameed tira badan ayaa waxa haatan laga dabageeyay abwaan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Abees oo curiyay gabayo uu kaga gilgilanayo sida maanta xal yahay gabayadaasi oo qaarkood abwaanku kaga hadlay qiso uu u soo joogay oo ka dhaxday mid kamid ah saldhigyada ciidamada booliska gudaha Hargeysa meesha waxa ku arkay waxaan baanaa prison break wallahi billahi tallahi saldhigaas baanaa ka tagaa meesha saldhiga koodru waan aragteen waa ka dhaxda balaan waqtigan oo kale hay inaan xanuunsanaysa oo ku xiran silsilad oo 3 habeen ku xirnay qabow wallahi billahi tallahi meesha waxaan ku arkay inaan garaacayo dilay xataa ku sheeganaysa weydiimaha bulshada kacdoonku ka dhex guuxayo ayaa waxa iyana qayb ka haddii 30 sano ka hor cadaalad darro ee sanam ka gadooday ma waxa jira cadaalad darro kala qurxoon oo midina xaq tahay in loo qaxo loo burburo laga dagaalamo mid kalena ay tahay daw iyo gar in la aamuso la xamilo laguna noolaado
magaca manfac dheef iyo dhaqaale deeqaha dunida mashaariicda bangiga adduunka dhaqaalaha sanduuqa SDF miisaaniyadda 400 milyuun kor u dhaaftay iyo qandaraasyada qaranka heshiisyada shidaalka macdanta beeyada khayraadka dalka iyo buuro iska dhan oo reer guuraaga Soomaaliland xoolaha ku raaci jireen oo la laayahay meel ay ka baxeen ayaynu iyana warbixinaha dambe ku eegi doonaa Soomaaliland ma jaraha maalmihii mujaahidiinta iyo miisaanka cadaalad